السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا برنامج كدب كهذا القيبتن وحينو كويغينا إثيوبيا وقويغا قبل كعنفرتا دالكاسي إثيوبيا وحا كسعودا dagaal culus oo u dhaxeeya canfarta iyo waliba ciidamada Tigreega gaar ahaan TPLF oo muddooyinkii u dambeeyay weeraro culus oo isdabajoog ku soo qaaday gobolka canfarta ee dalkaasi Itoobiya maamulka canfarta ayaa afka furtay waxa ayna sheegeen in jihooyin badan ay kooxda TPLF ka soo weerartay isla markaana dad aad u fara badan ay ku barakaceen khasaare baaxadlana uu gaaray deegaankaasi xogihii ugu dambeeyay halka uu wax marayo iyo waliba sababta keentay TPLF inay xoog saarto oo weerarooda ay hadda u weeciyaan dhanka canfarta ayaynu eegi doonaa dhinaca bidix waxa fadhiya jaamac isaga ayaan bal wax ka weydiin doonaa xogihii ugu dambeeyay ee waqooyiga gobolka canfarta jaamac soo dhaw waa dhaw sax TPLF waxa dagaalka Itoobiya dhowr wajiib u lahaa wajiga kii dawladda ay erideen nimanka TPLF wajigii labaad bishii June sanadka soo dhaafay kii dawladda Soomaaliya hadda Axmed wajigii saddexaad phase 3 inuu bilowday phase 3 ama wajigii saddexaad wuxuu ku bilowday canfartii bal canfarta ka waran iyo halka uu wax marayo iyo waxa weeye dagaal ku socda بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم مeel kasta aad joogtaan ba waa salaamaya ummadda Soomaaliyeed horta ummadda canfarta la yiraahdo maartay ama bulshada canfarta la yiraahdo waa ummad horta iska Soomaalido kala ah waxa weeyaan waa dad maartay iska caayda waxba laakiin waxay balaayo ka sii dhacday meeshay saaran yihiin yaa meel si inkaaran ah waa nimankeeda korkood saaran weey nimankan iyaga oo marka geelooda iska raacda geel iyo riyahana maartay labadaas ay leeyihiin baan maray ha loodi idaha laakiin laga baday deegaankooda kuma dhaqmi karaan ba si fiican nimankan marka dhibka jira wuxuu yahay Abi Ahmed ba baxar galiyay ama dawladda federaalka dhooqulaha uu galiyay iyo risooyin waa la amaanay waxa la yiri waa geesiyaal waa libaaxiyo maxaan ku yiraahdaa to kaawada maartay ku cadaydaan oo siligana waa ku findhicishaan niman balaayo oo weeye waa diirtay nimankii la dhigi jiray TPLF weeyaan baa leeyahay madax bay dagaalkii isugu shubeen balaayo aad bay galeen ha ma dhibaato badan bay u geysteen Tigreegi dhibaato badan bay u geysteen meesha la yiraahdo Mille iyo maxaan ku yiraahdaa to Aliweha iyo meeshii kale ee magaca lahayd Jifra eeriyadeedii wixii ka gaaray nimanka Tigreeg ahaa Ilaahay un baa ogaa soo garan si fiican oo niman qaqaawona canfar ah iyo kuwa mariya qababa waa ku yaaceen oo de way say ahaayeen bay labadoodu isugu maartay leedeen markii damba marka waxa ka soo gaadhay bahashi magaca lahayd diyaaradihii droonka ha yaa ka soo gaaray baaqigii soo haray ee Tigreegana diyaaradihii baa leefay nimankii marka Tigreega ahaa ugu yaraan konton kun oo ciidana oo deegaanka canfarta ay soo galiyeen wax qaablahay kama noqon waxa kama noqonin oo inta u dhaxaysa Mille iyo Jifra iyo Mahawaasa iyo eriyada un bay ku dhamaadeen baabah dukum daakum ku baxeen aakhirkii waxa weeye iyagoon ciidan quman oo ka baxay ba uu sajirin mar in la wala laayay moogtahay waxna canfarta dishay waxna diyaaradihii baa laayay yadaan waa ka soo baxnay umameed baa ka soo bixi meesha marihii iyo meedkii meeshii bay yaaleen oo daadsanaayeen hatta bahalkii ay wateen inta adigu ay soo tagasheen ba cararta wixii ay ka baxeen deegaanka wuxuu ahaa ahmaarada laakiin deegaanka Tigreega canfarta waxba kama ayna bixin wasabto waa ku dhamaadeen ba dadan biyana cabin cuntada cabina dhagaxaanta cuna oo maartay meesha uu iska joogay oo iyaga dhagaxa shiil madowga ee gubanaya maartay awal hore ay ku wada noolaayeen meesha dadkii un baaba fursad ku helayba say dooni ba ha noqoto haatan Tigreegu wajigii saddexaad ee dagaalka ay soo kiciyeen wuxuu u muuqdaa wajigan in ay doonayaan iyaga iyo canfarta inay ku kala maartay faataxaystaan sida xogta aanu ku helayno ama maamulka deegaanka canfartana qeyradaan ba ka soo hadhay saacad walba way qeyliyaan ko phase 2 sidii ahmaarada hadda ku saartay qeyladii waa wareeyda oo ku haysay calaamadii kuwa la mid ah hadda yaa ka marta calaamada ka waaweyn aad calaamadaha koronuhu waa maxay baa waa dhisa
si fiican kuwan hadda waxaa ka muuqda canfarta calaamadihii maaragtay cabsida iyo walaaca oo dhan baa maaragtay ka soo wada ifbaxay marka 24 saac way qaylayaan axmed kollayta hadlay awaal arbaa hadlay midaan la aqoonin baa hadlay qolca cali baa hadlay caliyow baa hadlay waa magacyadooda waa wada nooca moogtahay wixii nin walba wuxuu leeyahay hanala soo gaaro yaa muslinaha yaa islaamaha meesha Itoobiya oo dadka jooga muslimka wax yarba waa muslimada inta xitaa maartay muslim baa nahay si fiican Soomaalida soo gurban waxa ma Soomaalida iyaga xarash weyn baa u dhaxay muhiimadu waxa ay tahay in nimankan qayladhaanta ay ka dhamaatay sida maamulka deegaanka canfartu ay sheegeen marka anagu iyaga soo xiganayna 10 meelood ama 10 jiho oo kala aag ah yay saf ballaaran uga weerareen deegaanka canfartu 10 meelood 10 aag bay ka fureen dagaal 10kii aag ee ay dagaalka ka fureen 10kiiba way jabsadeen awaal arba meeshuu aadi lahaa isaga un baa og hal goob ah intaa diyaaradihii baa webta ku haya ciidanka 10ka goob ee ay weerareen fadhiya marka laga reebo 3 meelood inta kale waa Eritrean oo gobolka canfarta joogan dharkii baa laga bedelay qaar waxa loo bixiyay magaca jabhadda badda cas oo jabhad maartay to badda cas leeyahay oo waagi hore Tigreega col ahay yaa jirtay oo maxaan ku Eritreanku ay hayeen jabhadii marka noocaas ahayd yaa Eritrean iyo soo hubeeyeen ya mana soo hubeynine ciidankii Eritrea laga dhigay jabhadii badda cas ciidankii Eritrea inta la qaaqaawiyo mariyay laga bixiyay waxa la geeyay jiida hore ee maartay goobihii dagaalku uu ka socday wixii marka nimankan waa niman isfahmaya weeyaan Tigreega iyo Eritreanku waa laba noo walaala ah weey waa laba hooyo wada dhashay midba dhinac joogo Soomaalian garan oo isfahmaya okay nimankii marka si fiican bay soo jaan qaadayaan Tigreegina maxay sameeyeen canfarta wax allaala iyo wixii mucaarad ahaa inta isugu yeedheen oo hubeeyeen madaxweynihii hore ee deegaanka canfarta iyo taliyihii hore ee ciidanka deegaanka canfarta iyo qabaa'ilkii canfarta qaybo dhan oo kamid ah inta hubeeyeen bay magac u bixiyeen waxay yiraahdeen jabhad balaaya ka dhacday yaa tihiin hubkii rasaastiina waa ka beebeeyada naqaata canfarta beebee bay taqaanaa marka Tigreega mar rabna waxay dhaheen noo badiya baal Kuuriyaanka marka tiib beel fa garab dagaalamaya ka barbar dagaalamayaan ma aha ciidanka meesha soo galay ma aha ciidan yani Tigreeg kaliya ah ugu yaraan dhowr kun 5,000 6,000 oo maxaa ku jira jabhad ah iyo qabaa'ilo canfar ah oo iyaguna gooni u hubaysan qabaa'ilada wax tirsanaya marka qabaa'ilada caraysnaa oo dhan iyo jabhadihii maamuladii siyaasiyiintii caraysnayd iyo qabaa'iladii caraysnaa wixii oo dhan bay hub iyo rasaas ka buuxiyeen canfartuna 8 jir meeshuu ku gaadhay waa dagaalyahan markaan la saxaqiraynin waxa weeyaan waa ummad waxa weey de meesha albaabkii jaxiima ku yaala leeyahay sumug meesha taqtaqdo Soomaaliya buuraha gubanaya waxa leeyahay waxa ay carabtu u taqaanaa baabu jaxiima albaabkii jaxiima laga galahay weeyaan bay yiraahdaan meesha waxa weey marka waa meel iyada iyo dadkeeduba ay wax kale yihiin qofka bay'ada iyo maaragtay meesha uu ku nool yahay yuu la falgalaa halkaas wax ku noqdaa wiilka canfarku markuu 8 sano gaaro waxa weey waa wax gal weey saydooni ba ha noqoto nimankii canfaraha ma sii joogaynay leeyihiin haddaan gurmad degdeg noo imaan xageeda marka Addis Ababa kulli sababta waxa soo socda ugu badan waa horta waa canfar kale oo talada u socota aad iyo aad in haddaan laga hortaginna sida hadda ay wax ku socdaan maalmo ma qaadan doonto Samaara meesha la yiraahdo hal goob 10kii goobood sida maamulka deegaanka canfartu ay sheegeen hal goob oo ay iska difaaceen ciidankii ma jiro diyaaradihii iyo shimbirihiina waa shaqeyn la yihiin oo maxaan ku ilaahay to birriftaan bay hayaan dhagax baa laga hoosgalayaasho ma wajihade diyaaradihii way shaqeyn la yihiin waxa jira marka dawladda Itoobiya waxa suuragal ah khilaaf siyaasi ah jira oo hadda maaragtay wali aan si fiican u soo shacbixin oo ka dhex aloosan maamulada axmaarada iyo canfarta iyo Addis Ababa xusalka ku haya Abiy Ahmed nabad buu doonayaa in lagu noolaado war murtiyad bay soo saareen nimanka la yiraahdo TPLF ama Tigreegu dawladda dhexe eedihii oo dhan dhinac bay ka mariyeen awaal arba bay saaraayeen caradooda oo dhan canfarta
awal arbana hadda aragto isagaaba tiisi u yaabanba wax la sheegi karaa ma ahaba waa wadaad yar oo miskiin oo tusbax yar buu iska wataa oo iyo macwis maartay meesha sarwaalka markuu xidhana adaaba ka yaabiba marka qof la eedayn kara ama eed qaadi karaba ma aha marka laakiin waxay muujinaysaa maagooda waxa ay maagan yihiin doorkii hore axmaaro dib dambe hadal looga maqli maayo isku door wadin dawladda wata jaamacu calaamaduhu waxaa tiri calaamadihii bay u egyihiin marka la fiiriyo Rift Valley bal xagga ciidamada ka waran iyo barakac marka laga hadlayo inagu maamulka canfarta ma soo xiganayna dadkii canfarta kala badh yani wixii dagaal ahaa ee hore ee tirada badnaa waxay ahaayeen waxba dad nagama barakicin bay ku leeyihiin hadda in ka badan yani durba 300 oo kun oo qof yaa dagaalkii 3 maalmood socday yu gaarayaa bay ku leeyihiin barakucu soomandan oo deegaanka canfarta soon 4 iyo soon 2 miyaa la yiraahdaa iyo soon 1 intaasna dagaalku waa saameeyay soon 2 isaga ama soonka labaad ama gobolka labaad iyaga waa lagu habsaday sidii sheegayaan maxaan ku yiraahdaa to soon 1 iyadana sidoo kale qaybo kamid ah yaa gacanta ka baxay soonka afraad isna sidoo kale qaybo maartay gacanta maamulka deegaanka canfarta ka baxay yaa jira meesha marka waa waxaad moodaa in la suturusayo oo nimankan Tigreega iyo Addis Ababa ay is og yihiin oo la xanuujinayo qolyahan canfarta iyo maartay amxaarta in la xanuujinayo oo yiri ka argoosta maxay ka rabtaan anigu abi baa la dhahaa oroma gaara idin ma soo dirin canfar iyo axmaaradu iyaga la diray anuna oramaan ahay nimankii idin laayay nimankan ahayna ka aarsada kadib markaad ka soo aarsataanna anuna shirka dib baan u dhigay markaad ka soo aarsataan hawriina soo dhameysaan deegaanka axmaarada hadda goboladan markii laga hadlayo waqooyiga gobolka Gondar Tigreeb baa haysta axmaar xitaa si fiican uga hadli karto hadii laga hadlo ciidanka joogan soo qaadan buu dhihi Abiy Ahmed maxaan ku yiraahdaa to dhinacan wag xamra gobolka la yiraahdo oo aagan wallo aan jeclahay inuu ku yaalo isna waxa weeyaan kala badh wallada maartay waqooyi oo dhan waxaan jeedaa koonfurta wallo oo dhan dhammaan marka laga hadlayo gobolkaas koonfurtiisa waxa jooga yaani waa gobolkan walla laga xukumo magaalada la yiraahdo Waladiya laga xukumo dhamaantii iyaga haysta inta badan magaalooyinka bay soo dhacayn laakiin jidal bay taageen baabuurta iyaga canshuurta ka qaadanaya meel bayaga jooga iyaga waa socda wala arkaya hal gaari oo dawladdu leedahay dhaqaaqi karaahin ma jiro gaarigi dawladdu leedahay dhaqaaqo meesha dhiga isaga tago baa la dhihi koox askar oo soo lugaysay maalin luwito waxay imaatay baa lahaa meesha maxay ahayd magac lahayd Sakota markaas waxa qabsaday kuwa la yiraahdo iyagana agaw oo iyagana oo jabhada yaa iyaga qabsaday kuwa qowracay waa ciidan hadda militariga oo baabuurta ay Tigreeg kala hadheen meel dhex ka kala hadheen iyagoo socday kuwan iyagoo lugaynaya iyadoo kuwan baabuurti kala hadhnay idinku u taliya way soo socdaan qoryihiina way wataan qoryaha ka qaata anoo meelan geeyeen ma jirin marka muhiimaddu waxa ay tahay in la isdhex xushan yahay laakiin hadda canfarta la xanuujinaya sababtoo axmaarada hadda wax u haray oo saa u sii buuran ma jiraan laakiin axmaaradu way ka qayla dheer yihiin oo waa niman siyaasadda adduunka saameyn ku leh oo la falgalayo oo dawladda federaalka ah saameyn ku leh oo hadii la qanjaroofto qayladoodu markaba Addis Ababa ay ruuxaysaa meelo badan bay gaaraysaa kuwa laakiin haday qayliyaan waxa weeyaan jijiyaad sheegaya Samaara ma dhaafayso murqihii axmaaradu ay soo bandhigi jirtay ciidamadii faraha badnaa iyo hubkii iyo calaamadii noocaas ma leeyihiin ma canfartu laakiin soo dheer ku yihiin dhagaxaas ku dagaalan hadii xaaladdu adkaato oo ciidamo badan bay soo tabar loo soo xidhalay maanta waxaan arkay ilaa ku dhawaad aduu ciidan 12 kun qiyaastii ah oo shay iyo daraada tababaray qayladu bilaabatay ay tababareen iyo maartay durba maanta iyo tababar u soo xidheen oo gaardiyaha iyo kaale arag oo maartay wakaasa muhiimada marka waxa weeye dabka Itoobiya wuu shidan yahay afar marka waxay galabsatay waxa weeye qaybta labaad Abiy Ahmed amaanti Abiy Ahmed iyo Itoobiya ya amaanay aad u amaanay oo waxa la yiri waxa lagu jabiyay nimankii qolcaha watay ya nimankii baabaha ka dhigay baalay balaaba waxa afkooda ku hadlayeen moogtahay maxaan ku dhahdaa aad loogu amaanay intii baa marka Tigreeguna wax weyn baa ku gaaray meesha marka labada argoosan hadda way maxaa dhacay taariikhda rabaan ku daraan canfarta baa ma san jaamaco waa tahay dawadayaal intaas ayaynu ku soo afmeerinaa qodobkan tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgeliyo